أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي waxaan wanaagsan ku soo dhawaada Juqlaa Media. Juqlaa Media waxa kala socotaan barnaamijyadii ugu dambeeyay sportska kulamadii laga ciyaaray wala filaa suuqa iibsiga wax walba oo u baahan tahay sportska wixii ka cusub. Barnaamijka waxaan soo jeediyay anigoo ah Maxamed Xasan Cumar ku soo dhawaada mar kale Juqlaa Media. adeeganaya mahadcelina daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar like dheh si uu gaar asxaab badan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waa maalinkii labaad ee ciidul fitri nabad ku ciida sanadkiisa ilaahay bashbashi buraqala nagu gaarsiiyo waxaa laga ciyaaray kulamada Premier League Axad ilaa Isniintii ilaa Sabtidii kulamo aad u badan oo soo koobayna waxa uu horeeyay kulamadii laga ciyaaray horyaalka Premier League Liverpool oo booqatay Newcastle ayaa hal iyo eber ku adkaatay siin xoojisatay booskeedii labaad sidoo kale Aston Villa ayaa laba gool eber gool daro ku riday Norwich oo la xaqiijiyay in Serbia u laabatay sidoo kale Southampton ayaa gool daro ka qaadatay dhigeeda Crystal Palace halka Watford ay iyadana gool daro ka qaadatay naadiga Burnley Wolves ayaa gool daro ka qaabishay dhigeeda Brighton halka kulanka kale la sugayo oo ahaa Manchester City vs Leeds ayaa gurigeeda la tagay kadibna Manchester City ayaa soo baaratay kadib markii 4 gool waxba gool daro biday Leeds Manchester City ayaana mar kale dib u qabatay hogaanka maadaama Liverpool ay ka horeysay badisay hogaanka qabatay walow kulanka City markii la soo gaaray ay guuleysatayna hogaanka dib u la wareegtay maadaama 4 eber ku adkaatay welina waa hogaanka sidiisa sidoo kale waxa Axadii la dheelay kulanmo aad u xiiso badnaa oo kamid ahaa horyaalka Premier League kuwaas oo ka dhacay qaaradda Yurub waxaa garoonka Everton ayaa soo dhaweysay naadiga Chelsea kulan xamaasadiisa wata oo ahaa walow dagaal oo la socday sidaasna Everton ayaa ku qaabishay garoonkeeda naadiga kubadda weyn Chelsea ayaana gool daro qaadatay kadib markii hal gool eber loo adkaaday naadiga Chelsea ee ka dhisan cariga London Everton ayaana hal gool eber u adkaatay naadiga Chelsea Everton oo iska ilaalinayso inay u laabato relegation-ka iyo way ku jirtaa laakiin inay waxay diidan tahay inay xaqbato loo xaqiijiyo inay laabatay iyadoo dagaalmaysa ayaa Chelsea garoonkeeda u imaatay Chelsea-na waa gool daro ay qaadatay sidoo kale waxaa kulan laga dheelay horyaalka Premier League naadiga Tottenham Hotspur ayaa soo dhaweysay Leicester ayaana gool daro qaadatay kadib markii saddex gool ay Tottenham ku badisay Tottenham ayaana 3 gool ku adkaatay sidaasna Leicester ayaa loo adkaaday xaaladda top 4-kana sii adkaanaysa waxaa kaloo kulan la sugayo ahaa kulankii ugu dambeeyay maalinta Axadda West Ham United oo soo dhaweynaysa naadiga derbi wadaag ay yihiin derbi London Arsenal kadib kulanka markuu baasmayna ciyaarta waxay ku dhamaatay 2 gool Arsenal ay ku adkaatay Arsenal ayaa sii adkaysatay top 4-ka kaalinta afaraad kadib markii dhibco muhiim ay ka qaadatay naadiga ay ku xifaaltamaan London West Ham United sidoo kale maalinta Isniinta waxaa la dheelay xalay kulan kaliya kulankaas oo ahaa naadiga Manchester United oo soo dhaweysay Brentford kulankii ugu dambeeyay ay ku ciyaaraan maslaxariyada Old Trafford ayuu ahaa kulankii ayaana ku baasmay saacad markay ahayd 4 saac habeenimo naadiga Manchester United ayaana 3 gool eber ku adkaatay kadib markii ay goolalka kala heleen Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo iyo Rafael Varane meeshaas ayaana 3 gool eber ay ku adkaatay kulankii ugu dambeeyay ee ku ciyaareen xil ciyaareedkan
horyaalka Premier League garoonkooda Maslaxriyada Old Trafford. Horyaalka ayaa sidiis lagu bartayba ku socdo xamaasadii iyo waalidii lagu ogaa. Naadiga Liverpool ayaa goolaheeda sii badato, halka Manchester City iyadana ay dhabarka dhulka dhigi karin maadaama ay ogtahay in Liverpool Janis Gard ay tahay. Manchester City ayaana weli booska koowaad haysato, halka Liverpool ay iyadana soo daba carareyso. Labadaas boos ma la isku haysto, labadaas ayaa isku dhagan, waana waxay ku kala hogaaminayaan. Markaan fiirino table-ka, Manchester City ayaa 83 dhibic leh, halka Liverpool 82 ay leedahay. walo hal dhibic oo kaliya ay u dhaxayso. Naadiga kuftaa waa laga qaado waaye micnaha kulamada u dhiman. Hadda table-ka si fiican u soo fiirino, top 4 iyo meelahaas lagu dagaalamaya iyankana. Waxaa kaloo ka mid Manchester City kaalinta koowaad ku jirto 83 dhibic, 82 waxaa leh Liverpool. Chelsea oo kaalinta saddexaad ku jirto 63, Arsenal 66 cafwan Chelsea 66 ay leedahay, Arsenal 63, Tottenham 61, Manchester United oo kaalinta lixaad ku jirta 58. Top 4 waa la soo qaadan karaa laakiin marka dambeyso waa sii adkaanaysaa horyaalka. Hadda Chelsea gool dare qaadatay, taasna waxay furtay xitaa kaalinta saddexaad in loogu tartami karo oo walaa soo carfayaan. City iyo Liverpool kaalintaas koowaad ay isku haystaan, halka intaan kale soo hartay ay isku haystaan top 4-ka. yaa kaalin saddexaad gali doono, yaa afraad gali doono, yaase Europe League dheeli doono, xitaa Conference League oo loo tartamaya sanadkan. Cajaa'ib. Hogaanka sidaas ayuu marayaa. Sidoo kale yaa hogaaminaya gool dhalinta horyaalka Premier League maadaama uu gabagaba yahay. Uu haray dadka qaar 4 kulan oo u hartay, kulamo qaarna dadna 5 u hartay, dad 3 u hartay maadaama caqabado badan iska jireen xilli ciyaareedkan. Waxaa hogaaminaya gool dhalinta horyaalka Premier League Salah oo leh 22 gool, Son oo leh 19 gool, halka Ronaldo oo leeyahay 18 gool. Salah ayaana la qabalaayahay walow bariyaan uu gool dhalinin, laakiin waxaan rajeynayaa inuu dib ugu soo laabto. Son asina waa kana uu imaaday maadaama kulankii hadda u dambeeyay uu 2 gool ku tuurtay, gool waali xataa ku jirtay oo bidix inuu ku duubay oo mareysidba lugtii Di Maria iyo Messi. Cristiano Ronaldo oo asigana xalay gool shabaqa gaaray ayaa soo maray 18 gool. Waa arkaynaa wixii kala dhamaadan gool dhalintaas. CR ayaana leh top 4 am gool dhalin, laakiin macquul maahan. Waxaa ka horeeya xidig waaweyn Salah iyo Son walow asigana uu yahay xidig gool dhalinta la dhashtay. Sidoo kale waxaa la dheelay horyaalka La Liga. Hambalyo Real Madrid Championska horyaalka laga ciyaaro Spain Premier Division-ka. Real Madrid ayaa ku guuleysatay horyaalkeedii 35aad. Real Madrid ayaa garoonkeeda ku qaabishay naadiga Espanyol kadib markii 4-0 ugu adkaatay ciyaarta. Real Madrid ayaa 4-0 ku adkaatay. Sidoo kale Alaves ayaa soo dhaweysay Villarreal. Villarreal gool dare ay qaadatay. Valencia iyadana baraajo ay garoonkeeda kula gashay Levante, halka Athletic Club iyo Athletic Madrid ay wada dheeleen. Athletic Club ayaa Athletic Bilbao ayaa 2 gool ku adkaatay, halka kulan kale Barcelona ay 2 gool ugu adkaatay Mallorca. Sidee loo kala hogaaminayaa horyaalka La Liga? Benzema ayaa 6 gool leh, wax ku haysta ma leh. Xidig ku xigo 15 gool ayuu leeyahay. Benzema ayaan gool dhalintaas qaaday aan dhihi karnaa haddaan fiirino xaaladda kubadda cagta.
horyaalkan La Liga waxaa hogaaminayo ma la dhihi karo maadaama ay champions tahay, champions of La Liga. Championska ayaa kaalinta koowaad xoreysatay wayna qaaday, wax tartan ma jiro oo lagu kala tagay horyaalkaas Real Madrid. laakiin waxaa kaalmaha labaad, saddexaad, afraad isku haysto naadiga Barcelona oo 66 leh, halka Sevilla 64, Atletico Madrid 61. horyaalkaas waxaa laga bartay Real Madrid ayaa ku guuleysatay horyaalkeedii 35aad. Ancelotti ayaana aad iyo aad ugu mahadceliyay ciyaartoydiisa, khaasatan Karim Benzema iyo Vinicius Junior. walow bandhiga ciyaartoyda uu high oo yahay, waxaa kaloo laga soo calaameeyay in ay horyaalka ay ku wadaageen qadka dhexa baryahan aan laga taaban karin, Casemiro, Kroos iyo Modric. saddexdooda ayaa ku wada guuleystay mar kale horyaal oo La Liga ah. sidaas ayaana horyaalka La Liga ugu bixinaa. waxaa kaloo taaban doonaa horyaalka Serie A-da ee cariga Italy laga ciyaaro. naadiga Napoli ayaa soo dhaweysay naadiga Sassuolo, 6 gool ayay u adkaatay. Napoli ayaa mar kale soo tiigsatay kuna rajo weyn inay top 4 ku dhameysato. hadda kaalin saddexaad ayay xaqiijisatay nama la dhihi kare, laakiin way dadaaleysaa. 6 gool ayay ku adkaatay. Spezia ayaa garoonkeeda soo dhaweysay Lazio. Lazio ayaan 4 gool iyo 3 gool ku adkaatay. kulan la isku firdhiyay, kulan 7 gool laga dhaliyay, halka Juventus ay 2 gool uga adkaatay Venezia. labada goolna xidig daafac ah oo dhaliyay, waa cajaa'ib. Leonardo Bonucci kabtanka kulankaas, kabtanka Juventus, ma ahan Malena Bonucci ayaa labadaas gool u dhaliyay. halka kulankii kale la sugayay ee AC Milan iyo Fiorentina uu ku soo dhamaaday gool waxba oo AC Milan ku adkaatay, sidaasna hoggaankeeda ku sii adkaysatay. Udinese ayaa soo dhaweysay Inter Milan, 2 gool Inter Milan ayaa ku adkaatay. Roma iyo Bologna ever ayay ku kala baxeen, halka Atalanta ay soo dhaweysay Salernitana, gool ayay ku kala baxeen. sidee loo kala hogaaminayaa horyaalka Italy Serie A-da? AC Milan ayaa kaalinka koowaad adkeysanaysa oo leh 77 dhibic, Inter Milan 75, Napoli 70, Juventus 69. runtii wax hare waa kulan iska yar, 3 kulan 4 kulan Malena 3 kulan. AC Milan 3 kulan ayaa u hartay, sidoo kale iyadana 3 kulan. hore hoggaankaas ayaa la isku haystaa. baryahan waxa waaye magaalada Milan ayuu ka shidan yahay horyaalka. nasiib baan ayaa leeyahay labadaba cid. gool-inta waxaa hogaaminayo Ciro Immobile oo leh 27 gool, Duvan Vlahovic ayaa leh 23, halka Lautaro Martinez oo leeyahay 17 gool. sidoo kale horyaalka Bundesliga ayaa laga dheelay. Borussia Dortmund ayaa 3 gool iyo 2 gool daro qaadatay, halka 4 gool iyo 3 afan 4 iyo 3 gool daro ay qaadatay, halka naadiga ku guuleysatay horyaalka Bundesliga Chelsea Milan maadaama horyaalka la qaaday. Bayern Munich inkastoo horyaalka qaaday, haddana 3 gool iyo gool ayaa lagu dhuftay. horyaalada intaas ay ku soo gabeynayna. maxaa is leedahay yaa ku guuleysan doona horyaalka Premier League? horyaalka La Liga waa la qaaday, halka Serie A uu qaati taagan yahay. yaa qaadi doona, yaa ku guuleysan doona, labada Milan mise Napoli? saadaali oo fikirkaaga nagula wadaag qaybta commentiga. aad aniga mahadcelinaa daawashada muuqaalkan. intaas ayaan kusoo gabeynayna barnaamijkeena. aad mahadsantihiin. fadlan dhamaadka dana soo gaar, subscribe leh, like saar si uu gaar saxaab badan. aad mahadsantihiin mar kale iyo Joqla Media.